بسم الله الرحمن الرحيم وسدح بشر سجالات سنة لبكون لباتن يسدح هل كانوا عالي ميديا داود الكسر وهذا مركز لي قضب ونقف لندن waxyaabaha ay qaaradda Afrika iyo caalamku uga dhigan tahay afgambiyada ku soo laalaabanaya qaybo ka mid ah qaaradda Afrika ku soo dhawaada mar kale Caali Media daawad haddii aad nagu cusubtay YouTube-ka Caali Media subscribe inoo saar qaaradda Afrika oo ka kooban 54 wadan ayaa laga soo bilaabo 1950kii wadamada caalamka afgambiyada ka dhaca waxay ka soo gashay kaalinta ugu horeysa inkastoo la tilmaamay sanadihii bilihii ugu dambeeyay ee xoogeysteen afgambiyada ka dhacay qaaradda Afrika haddana mar kastaba qaaradda joogta ee afgambigu ka ahaayeen afgambiyadii ugu dambeeyay qaaradda laga diiwaan galiyay waxa uu ka dhacay 30kii August sanadka 2021 oo maalmo yar ay ka soo wareegeen wadanka Gabon oo ku yaala galbeedka bartamaha qaaradda Afrika halkaas oo saraakiil ciidan ay ku dhawaaqeen in afgambiyeen dawladdii la soo doortay oo hogaaminayay madaxweynihii dalkaasi Ali Bongo oo asagii familkiisu muddo badan ay ka soo talinayeen wadankaasi Gabon afgambiga labaad ayaa 26 Juun sanada 2023 wuxuu ka dhacay wadanka Niger taas oo saraakiil ciidan ay afgambiyeen madaxweynihii dalkaas Mohamed Bazoum afgambiga saddexaad ee January 2022 wuxuu ka dhacay wadanka Burkina Faso halkaas oo saraakiisha ciidanku ayagana ay xukun ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Burkina Faso Roch Kabore oo lagu eedeeyay in wax ka qaban waayay dagaalada sii xoogeystay ee kooxaha Islaamiyiinta ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah galbeedka qaaradda Afrika oo wadankaasi Burkina Faso uu ka mid yahay afgambiga afraad ayaa isaguna wuxuu ka dhacay wadanka Guinea September 2021 kaas oo taliyaha ciidanka gaarka ee wadankaasi Guinea Colonel Amadi Diomboya uu afgambiyay madaxweynihii wadanka Guinea Alpha Conde kaas oo sanad ka hor wax ka bedel ku sameeyay dastuurka dalkaasi si uu meesha uga saaro xadidaadda uu dastuurku ka xadidayay inuu mar kale isku soo taago doorashada wadankaas afgambiga shanaad ayaa laga diiwaan galiyay Abriil 2021 wadanka Chad oo Mohamed Idris Deby uu xukun kula wareegay kadib geeridii aabihiis Idris Deby oo 30 sano wadanka ka soo talinayay kaasoo geeridiisa shaki badan uu ku yimid kadib markii lagu toogtay furin dagaal oo ciidamada wadanku ay dagaal ka wadeen afgambiga lixaad ayaa Suudaan ka dhacay October 2021 kadib markii General Abdel al-Burhan iyo group ciidamada uu hogaaminayay ay xukun ka tuureen madaxweynaha dalkaas muddo dheer ka soo talinayay Omar Hassan al-Bashir kaasoo dawladbaxyo shacabku ay sameynayeen muddo bilaan ka dhacay wadanka Suudaan looga dalbanayay inuu xukunka isaga dago afgambiga toddobaad ayaa August 2020kii group korneele ciidan ahaa waxay xukun kaga tuureen madaxweynihii wadanka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa waxa ku socday muddo bilaa dawladbaxyo dawladdiisa looga soo horjeedo taasoo dadku ay kaga cabanayeen amni darro iyo dhibaatooyin wadankaasi daashaday madaxweynuhu wax ka qaban waayay 9 bilood afgambintiisa kadib ayaa isla afgambin kaleeto waxa ka dhacay saraakiisha afgambiga sameeyay dhexdooda kaasoo Assimi Goïta uu mar kale afgambi kaga sameeyay saraakiisha afgambiga sameeyay dhexdooda asaguna uu kula wareegay xukunkii wadankaasi afgambiyadaas daba jooga ee ka dhacay qaaradda Afrika ayaa waxay ka dhigaysaa in markasta Afrika ay tahay qaaradda ugu afgambiyada badan marka loo fiiriyo wadamada dunida marka lagu saleeyo xog ay aruuriyeen cilmi-baarayaal Mareykan oo lagu kala magacaabo Jonathan M. Powell iyo si lamid ah Carleton Eltain laga soo bilaabo 1950kii 486 isku day afgambi military ah oo ka dhacay caalamka in 214 ka mid ah ay ka dhaceen qaaradda Afrika kuwaas oo lagu guuleystay 106 ka mid afgambiyadaasi sidoo kale waxa warbixintooda ay xustay in 54 wadan ee qaaradda Afrika ku yaala 45 ka mid ah isku dayadaas ay ka dhaceen taasoo ka dhigaysa in 9 wadan oo kaliya isku dayada afgambi ay ka badbaadeen su'aasha la isweydiinayo ayaa ah maxay waxyaabaha sababta oo qaaradda Afrika afgambiyada ku badiyay maxay uga dhigan tahay wadamada Afrika iyo caalamka inteeda kale afgambiyadani qaaradda Afrika oo lagu tilmaamay inay ka mid tahay qaaradaha ugu kheyraadka badan dunida ayaa haddana wadamadeedu waxa la sheegaa inay ka baahan yihiin kheyraadka ay haystaan sababaha ugu waaweyn ee keenaya afgambiyada ayaana waxaa ka mid ah in kheyraadka ku jira wadamada Afrika ayna ka faa'iideysan dadkoodu wadamada Burkina Faso Guinea Mali iyo Chad ayaa waxaa la sheegay in sanadii 2020ka GDP-gooda guud uu gaarayay 20 bilyan oo kaliya sida lagu ogaaday qiyaas uu sameeyay Bangiga Adduunka Suudaan ayaa sidaas oo kale Bangiga Adduunka wuxuu ku sheegay in sanadkaas GDP-gooda uu gaarayay 21 bilyan marka loo barbar dhigo Mareykanka oo GDP-giisa soo gaarayay 20 trilyan sanadii 2021 kheyraad ahaan marka loo barbar dhigo wadamadaas oo la isku daray iyo Mareykanka wadamadaas ayaa in badan kheyraad badan taasina waxay ka dhigan tahay in qaaradda Afrika kheyraadka Ilaahay uu siiyay ay ka baahan yihiin wadamada wax soo saarka lehna
waxaa lagu eedeeyaa in wax soo saarkooda ay reer galbeedku ka faa'iidaystaan. sidoo kale saraakiisha afgembiga sameeyey ayaa waxay tilmaamayaan in sababta afgembiga keenaysa ay ka mid yihiin maamul xumo ka taagan wadamada qaaradda Afrika dhexdooda. saraakiisha afgembiga waddanka Gabon waxyaabo ay u cuskadeen afgembigooda waxaa ka mid ah in muddo badan hal qoys oo kaliya waddankaasi ka soo talinayay. sidoo kale Suudaan oo ilaa xilligan dagaalo ay ka socdaan afgembigii ka dhacay waxaa loo sababeeyay baahi iyo dhibaatooyin badan oo ka taagnaa wax soo saarka waddankaas. shacabka ayaa waayay waxay ku noolaadaan iyo waxay wax ku iibsadaan intaba. wadamada qaar waxyaabaha keena afgembiga waxaa ka mid ah isbedelo badan oo lagu sameeyo hay'adaha dastuuriga ee waddanka iyo dastuurkii waddanku uu ku shaqaynayay intaba, si madaxda markaasi joogta ay xukunka u dheeraystaan. baahiyahaas oo dhan oo la isku daray waxay Afrika ka dhigtay meel aad u nugul. Burkina Faso afgembi ugu dambeeyay oo ka dhacay waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay wadamada Afrika ugu kheyraadka badan, waxayna ka mid tahay wadamada ugu faqriga badan ee qaaradda Afrika. sidoo kale Niger kheyraadka laga helo waxaa ka mid ah macdanta uraniumta oo ay tilmaameen in Faransiisku si bilaash ah uu ku qaadanayay ugana faa'iidaysanayay. wadamada kale oo qaniga ee baahan Afrika waxaa ka mid ah waddanka Koongada Dimuqraadiga, Suudaan, Chad. wadamada Afrika intooda badan waa wadamo kheyraad badan haysta haddana kheyraadkooda ka baahan. taana waxaa la dhihi karaa waa waxyaabaha keenaya in afgembiyadu ay Afrika ku soo laalaabtaan. haddaba afgembiyada maxay uga dhigan yihiin qaaradda Afrika iyo wadamada caalamka? wadamada afgembigu ka dhacay waxay uga dhigan tahay in shacabkooda iyo saraakiisha afgembiga sameeyey hadafkooda ah inay ka dhabeeyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka wadamadooda daashaday ay maanta jaanis fiican u haystaan. saraakiisha Niger afgembiga ka sameeyey waxay ku dhawaaqeen in Faransiiska ay u arkayeen dhibaatadooda oo asal u yahay in waddankooda ay ka saarayaan 1500 askari oo waddanka ka joogtay. safiirka Faransiiska ayay ugu baaqeen in waddanka degdeg uga baxaan inkastoo weli aysan aqoonsan go'aankaasi oo weli ay joogaan. wadamada kale ee deriska la ah ee ku jira urur goboleedka loo yaqaan ECOWAS ayaa si ay uga hortagaan dhibaatooyinka laftigooda ka soo wajihi kara haddii afgembigaasi aysan ka jawaabin. waxay ku baaqeen inay faragelin degdeg ah ku samayn doonaan si maamulkii waddanka ka jiray afgembiga ka hor ay u soo celiyaan. sidoo kale waddanka saraakiisha afgembiga ka sameeyey ayaa iyaguna waxay garab ka heleen wadamada kaleeto ee deriska la ah sida Mali iyo Burkina Faso oo dhibaato midaas oo kale qaba oo ku dhawaaqay inay garab siin doonaan. waddanka Gabon oo dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta oo aad u xooganaa ayaa iyaguna afgembiga kadib waxaa la soo qabtay saraakiil iyo dad ajnabi ah oo dhaqaale badan boorsooyin ugu cabaysnaa waddanka gudihiisa. saraakiishu sidoo kale waxay tilmaameen in musuqmaasuqa ay la dagaalami doonaan si waddanka noloshiisa kor loogu soo qaado. qodobka ugu weyn waxay tahay in wadamada kale ee qaaradda Afrika ee hadda afgembiguusan ka dhicin shacabkoodu si ay baahiyaha qabaan ay isku dayaan in shacabka ay qanciyaan si dhibaatooyinka afgembiga ee wadamada ka dhacay ayagana uusan u soo gaarin. waxaa wadnaha farta ku haya wadamadii saameynta ku lahaa wadamada afgembigu ka dhacay, kuwaasi oo inta wadamada laga saaray inta aan ka ahayn ay cabsi badan ka qabaan in ayagana danahooda gaarka ee wadamada ay ka lahaayeen meesha ay ka baxaan. wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo galaangalkooda Afrika uu sii kordhayay tan iyo markii wadamada Afrika xorriyad qaadashadooda ay bilaabeen ayaa laga cabsi qabaa inay saameyn xoogan ku yeeshaan howlahan afgembi ee qaaradda Afrika ka dhacaya. Ruushka meelo badan oo ka mid ah oo Mali ay ka mid tahay ayuu geeyay ciidamadiisa caloosho shaqaystayaasha ee Wagner loo yaqaano si uu u xoojiyo kaalmayna u siiyo wadamada afgembigu ka dhacay. sidoo kale Shiinaha oo ah waddan ganacsigiisu uu sii xoogaysanayo saameyntiisa Afrika ay kordhayso ayaa la tilmaamayaa inuu asaguna isku dayayo inuu xoojiyo saameyntiisa iyo joogitaankiisa. daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa qodobkan uga hadlaynay saameynta afgembiyada ka dhacay qaaradda Afrika ay ku yeelan karaan qaaradda dhexdeeda iyo wadamada caalamka intaba. intaan warbixintan oo kale taa kulmayno waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.